wax boob daraadiis loo sameeyey arrimahaas oo dhan baarlamaanka soo cuskunaya ayaa la midkii mooshinkaas wuxuu ku saabsanaa waxaa saxiixay 143 xildhibaan ayaa mooshinka saxiixay moshinku wuxuu xiganayaa qodobkii 8aad ee heshiiskii lagu gaaray Addis Ababa ee ku saabsanaa qaabka loo dhisaayo jub kadib markii dowladii federaalkeed ay ka caalwaysay waa tii gogol ay fadhisay dowladda Ethiopia waa tii lagu go'aamiyey in la dhiso jubba la wada leeyahay qodobka 8aad ee heshiiskaas wuxuu dhigay heshiiska horta goorta la saxiixay wuxuu ahaa 27 bishii 8 2013 dhammaan mas'uuliyiintii markaa xilka haysay way wada ogyihiin qodobka 8aad wuxuu dhigay in gogol nabadeed la dhigo in dowladda federaalka ay qaadato doorkeeda hoggaanka maamulka loogu dhisaayo in qaacidada la isticmaalayo ee muxuu ahay maamulka lagu dhisaayo uu noqdo maamul loo dhan yahay iyo ugu dambeyn waxa ka soo baxa meesha in baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyo waa qodobkii 8aad ee Addis Ababa heshiiska lagu soo gaaray xildhibaanada mooshinkan keenay qaar maanta waa xildhibaano qaarne kuma ayna soo noqonin baarlamaankan 10aad gudoomiye Jawaari ayaa qoraalka muxuu ahay u diray madaxweynaha maalintii muxuu ahay mooshinka loo codeynayay waxaa cod ka qaaday gudoomiye Jaylani Nuur Iikar gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaankii 9aad haddana xildhibaan ah sidaa awgeed baarlamaan Jubbaland la yiraahdo oo madaxweyne soo doorto oo xalaal ah oo la dhisay malaha waxaan maqlayaa dad mas'uuliyiin ah waliba aad iyo aad u qiimo badan xiganaya dastuurka federaalka oo leh Jubbaland la dhisay Jubbaland shirka ma qayb gelin Jubbaland daasaan la yeelaa war Jubbaland dhisantay male ha ku ceeboobina dadka fikirkaas qabo waa kuwaas dokumentigeedii baarlamaankana muxuu ahay arkiifyada baarlamaankana wuu ku jiraa anigana waan hayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuudna wuu hayaa xafiiskiisii waa la geeyay waa ogyahay waayo gudoomiyihii baarlamaanka Jawaari warqadda ku saxiixan yahay madaxweynihii Soomaaliya loogu diraayo waa taa haddii tan meel la iska dhigo oo waxba lagama soo qaadayo la yiraahdo go'aankii badda ee aad ogeedeen baarlamaankii 8aad hadda waa kan kii ka horeeyay kii kasii dambeeyay baarlamaankii 8aad ayaan codka ku diidnay qaabka muxuu ahay wada hadalka loo galay ee badeen kan iyo kanna waa isku mid baarlamaan go'aankiisa wax bedeli karo kaliya go'aan kale oo baarlamaan haddii baarlamaanka markii tan uu ansixiyay 6 bilood kadib xildhibaano taageersan in maamulkaas sax yahay ay warqad soo qoraan ay jibiyaan iyagoo tixraacaya qaraarka baarlamaanka ee la soo saaray iyo muxuu ahay mooshinka loo codeeyay
codayntaas iyagoo burinaya ay dhihi karaan mooshin soo qori karaan ma ayna dhicin waa la isku raacay waa la isku waafaqay madaxweynihii soomaaliyana waa la ogeysiiyey ra-iisul wasaarihiisa waa la ogeysiiyey wasiirkiisii arrimaha gudahana waa la ogeysiiyey sidaas awgeed in maanta shaksi mas-uul ah ama waagaasba mas-uul ahaa uu ku doodo oo uu yidhaahdo jubba ayaa dhisan waxaa weeye ku tumasho sharci waay sharcigu baarlamaanka ma muxuu ahaay wanaagsano baarlamaan qaraarkiisa baarlamaan unbaa bedeli karo xataa madaxweynehana diidi karin sababtoo ah wuxuu uu diidayo ma aha sharci oo dhaqangalaya maaha waa qaraar aan ku joojinayno wax socday oo si sharci darra ku socday ayaan ku joojinayno kii badiyaan ku joojinay kii jubbaland aan ku joojinay marka jubba la wada leeyahay in la dhiso ayayna ujeedadayna ahayd shaksi kuma xumaynayn runtii beelaha lagu xadgudbay ee deegaanka jubbooyinka degan meel baa xanuunayso markuu qof mas-uul ah oo weliba ixtiraam iyo sharaf ku dhaxle bulshada markuu yidhaahdo jubbaa meeshaas ka maqan war jubba lama dhisin jubba baarlamaankeeniyaa diiday maxaa boogtaas ugu danqinayay oo dadkaas soomaaliyeed xaqooda u duudsiinay xataa ma dhihi wayso hadday wax qaldi yihiin hala soxo xataa intaa xataa wax weyn maantoo dhan waxay ku hayaan jubbaland war jubbaland dhisan ma laha ama xildhibaano ahaada ama mas-uuliyiin hore ahaada ma aha waxaan idinku duldoodaya wax kayru sharci ah waxaan idinku duldoodayaa waa sharci ciddii rabtaana ha timaado arkiifyada ha tagtay ha ka qaadato markaad jubba tiraahdo jubbalandaa dhisan markaad tirahdid waxaad lamid tahay adoo sharcigii dalka oo dhan baabi'iyey waayo go-aan baarlamaan ayaad afkaaga ku burinaysaa adoonan awood u lahayn walaalayaalow sharci diidiyaan la noqonin walaalayaalow sharciga ha loo hoggaansado walaalayaalow qof walba waxaa anfacaysa haddii qof walba uu sharciga asaga jeebka uu ku qaato dalkan gacantuu ka baxayaa waa sax meel dheeraa laga keenay waa sax meel fogaa laga keenay laakiin dad in lagu takrifalo oo aad jidaysid sax ma taas ayaa ka daran waxaad sheegayso waxaad moodaa eedayn fara badan aniga oo aan difaacayn eedayn fara badan in dowladda federaalka loo jeedinayo walow aan dowladda ka tirsanahay laakiin iyagu markay dowladda leeyihiin ujeedadooda waa xukuumadda laakiin dowladda ayaa afkooda ku badan horta marka ugu horreyso waxaad dhaliilsan tihiin waa xukuumadda haddii xukuumadda dhaliilsan tihiin ayada inaad magaceeda sheegtiin ayaa la rabaa oo tiraahdiin xukuumaddan dhaliilsana haddii laakiin dowladda aad dhaliilsan tihiin ogaada xil kasta oo aad dalkan ka soo qabatay iyo mas-uuliyad kasta oo dalkan ka soo qabatay waa inaad qirtaa shacabka soomaaliyeed siday u qiraayiin dowlad waa tii adkaataa dowlad jilacsan waa horeyay noo dishay dowladdeenna waa inay adkaataa si shuruucda dalka loo fuliya qofka raba inay dowladdeenna golada laalaadiso oo ay wax walba iska qaadato oo ay wax walba wada hadal ka gasho oo wax walba oo ay midkayso dowladnimadu waa dowlad inay adkaataa maalin kasta dib u heshiisiin maalin walba dabacsanaan maalin walba in laisku xadgudbo dowladdii aan ka tirsanaay ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan qaatir uu waayna dowlad goboleedyada qaarkood somalilandida waa go-nay tiri baa ka dhow waa ogyihiin iyaga taasaa ka dhow dowlad goboleedyada qaarkood
somalilandida waa go'no leh ayaa ka dhow way og yihiin waxaan ogahay xilligii midowgii maxkamadaha awoodii iyo xasiloonidii 6 bilood kuma ayna keenin wada hadal iyo wada xaajood kuma ayna keenin gobolada dhexe markay gelinsoor sii maraayeen dawlad goboleedyada madaxweyneyaalkooda xataa Soomaaliland iyo Puntland iyo meel kasta kuwaas un baa noo dhisnay cimaamadii guduudneed ee midowga maxkamadaha ay madaxa wada saarteen madaxweyneyaalkooda ciidankii ka soo goostay Burco ayaa gelinsoor ugu hor yimid ciidankii maxkamadaha dawladnimadu tuugtuugtin kuma imaanayso shacabka Soomaaliyeedna taasay aaminsan yihiin dawladii naga burburtay militarigu ee 22 sano dalka xukumaysay waad ogtihiin banaanka la saaxan jiray waxaanan wiil dhinta ahayn iyo waxaanan muxuu ahay dadka Soomaaliyeed inta banaanka saaxatay inta guri saaxatay badan maanta qadar in soo yahay banaan qof saaxan kara male maanta magaaladii Xamar ayaa kala go'an wax kale iska dhaaf sideed u leedihiin marka dawladdiina dawlad jilacsan oo dadka qof walba wax tabanay meeshiisa ugu tagto ha noqoto meeqasan oo aan dawlad arta ka soo bilaaw ilaa intaan ayaa waxaan ku jirnaa walaalow kaale war dawladnimadu ha adkaato inay dawladnimada adkaato taageera wallaahi oo billaahi oo tallaahi haddaanan dawladnimadeena adkaanin maalin walba canug yaraa isbaaro u dhiganay taas waxaan ka leeyahay dawladda federaalka oo mar walba qof kasta xataa xildhibaanadii ayaa garan la waxa ay la hadlayeen in xukuumadda ay tahay iyo inay tahay dawladda federaalka waa 3 hay'adood 3 hay'adood waa garsoorka waa baarlamaanka waa fulinta 3daas hay'adood dawladda la isku yiraahdaa marka ayagoona ogeen hay'adihii iyaga ay ka tirsanayeen ayay qaarkood eedeynayeen fahamka siyaasiga ah ayaa muhiim ah in la xigto waxaan taageersanahay haddaan ahay xildhibaan daahir amjeso in dawladda ay adkaato inay dawladda murqu weynaato waa dhammaatay xilligii lasbaryaayey waxaan raalli ka nahay hay'adaha fulinta inay gacan adag ku qabtaan wax allaale iyo wixii dib u keenayo qarannimadeena Soomaaliya ayagoo u maraayo sharciga ma aha iska dil ma aha iska qabo waa inaad u martiin sharciga ninka dawladdii federaalka ahaa ee dalkan oo dhan ilaa min raas casayr ilaa bari ilaa raas kambooni xakumay leh hawadan ka xirtay diyaaradeeda ma soo digi karto qof kale ayaa loo qiildiyaa wallaahi waa xaaraan weliba dawladnimo ma aha waxa aan leenahay waxa weeye dawladnimadeena ha adkaato qof kasta oo qalad ku socdo sharciga la horkeenaya dadka yar guryahooda la boobahaya Jubbaland meesha la leeyahay waxaan dhisi laanahay jubba la leeyahay aan dhisi laanahay waxaan samayn laanahay muxuu ahay bal ilaah baan kuugu dhaari ninka hadda maanta dhahayo Puntland ka maqan shirka Jubbaland ka maqan shirka nin kale 3 dawlad goboleed ayaa fadhiyay iyo gobolka Banaadir majority-gaas ma arki wayseen see loo arki waay majority-ga oo fadhiya meesha dawladnimadu waa majority-gu dawladda Soomaaliya way rabaan tan hadda jirta ay rabaan wayna soconay cid isbaar u dhigin karta male yaana boogaha yaan la bushinin yaanan meelan la iska taaban qarannimadu inay adkaato waaye dawladnimadu waa inay adkaataa sharciga waa inuu adkaadaa
walaalow iyo inta aan marno iyo wax tootoosin waxaa ilaa 2000 ayay soo maraysay maanta waxay taagan tahay adeerow shalay haddii madaxweyne xasan sheekh ku dhibtooday biritin madaxweynaha iga dambeeyay ku dhibtooma maayo ra-iisul wasaarihii hore haddii isku dhibtooday ra-iisul wasaare xasan cali khayre ka dambeeyay ku dhibtooma dowladnimadoo adag baan rabnaa madaxweyne farmaajo gadaashiis madaxweynaha imaan doono inuu dhibtoodo ma rabno hal sano iyo bar baa u dhiman hadday ugu bataan 4 sano oo kale ayaa la dooranayaa mas-uuliyiinta hadda haya wixii ka dambeeyana waad ogtihiin dastuurkeenaa dhigaya inaad qofka uu soo taagi karin ma intaasaan dulqaadan wayni ma intaasaan sharcigeennii aan tuugtuugtan u gelinaynaa yaa ka celiyey puntland cidda ka celisay yaa waay cidda ka celisay shirka puntland yaa waay waa idinka beesha caalamka iyo dowladdii federaalkeed isku diraaya iska hor keenaya mase beesha caalamka ma waxaad moodeen dad umiyiin oo iska socdo waa dad qabiira waa dad wax fahmaya way dhammaatay kanaalkii soomaaliya la gacmaysanayay horeyaa loo sheegay ninka la yidhaahdo farmaajoa soo xiray waa dhammaatay sharcigaa adkaanaya intaas ku qanca xisbiyadiina dhista dowladnimadiina dhista isdhisa birito si aad u tartantid adigoo aan isbaaro lagu dhiginayn adigoo aanan dhib lagu geysanayn adigoo cidna muxuu ahay ay ku handadayn si dimuqraadi aha loo tartamayaa walaalow ogolow dowladnimada ay adkaato sheekh shariif sheekh axmed dowladdiisiyaa dhibkii ogaantay ku jirta cabdiqaasina madaxtooyada ku dhagan muxuu ahay kii dadku ugu dhawaay uu dhigtay muxuu ahay madaxtooye kale uu ka dhigtay madaxweyne sheekh shariifaa dhibaatada ogaanto soo maray ninka la yidhaha cabdullaahi yuusufa asagoo dhexda ay u maraysa aan ceyrinay oo aan waddanka ka saarnay madaxweyne xasan sheekhaa tab ay tahay la garan waaye habka ay ku socoto dowladnimadiis maalin cad ayaa waxaa gobolladii galgaduud ay new police intay iska soo galaan gacmaha horsanayn oo leen dalka amayba qabsadaan jubbaland yay ahayd waxa inta ku garqaaday jabuuti etoobiya ku geysay annagoo diidan oon wada ogsoonahay maalin walba dowlad jilacsan oo gacmaha ku tuugtamayso adeeroo annagana xildhibaano kama ahaan karno idinkana madaxweyne ninkii rabo madaxweyne kama ahaan karo dowladnimada waa inay adkaataa qof kasta oo aqoon-yahana qof kasta oo faham siyaasadeed leh wuu jecel yahay dowlad adag oo soomaaliya ay leedahay shacabka soomaaliyeed iyo dhalinyarta soomaaliyeed badda ku daadanayso way jecel yihiin inay dowladnimada adkaato way jecel yihiin ciddii mudaharaad qalqaalinayso ciddii dhib wadda ciddii wax samaynayso shacabka soomaaliyeedow yaan bad muxuu ahay dab yaanan idinku shidan daddan leeyahay dab idinku shidan ninka maanta jubbaland dadkii shacabka ahaa ee iska tabaalaysnaay guryaha inta ka soo saaray muxuu ahay maanta oona waddooyinka ku hayay qasab iyagu mudaharaad waa kuwaasa dadkii joogay beesha caalamka indhaha mala ha weydiiso qasabaa guryahooda looga soo saaray maanta waa madaxweyne ma ah meel 3 madaxweyne ay sheeganayso waay waa meel waxaan ka soo sheekeeyay iyo qoraaladii muxuu ahay iyo qaraaradii laga soo saaray aan gacantayda ku hayo kuwaas ay yihiin waay markaasuu xoog rabaa inuu madaxweyne ku noqdo xoog uu rabaa dadka inuu iyagu mudaharaada uu yiraahdo ya qofkaas hadduu og yahay dowladnimada inay adag tahay absolute kuma dhiirateen laakiin waa adkaatay ma oga asaga dowladnimada soomaaliya waa adkaatay waana la soo qabana ninka axmedooba rabo inuu isbahaysi siyaasadeed la yeeshto rabow ku dembiyaad noqonaysaa asagaad ku dembi noqonay waa la soo qabana ama dadka mudaharaad ha u soo bixiyo ama cid kale ha u soo bixiyo ama banaanka xisbiyaha ku taageerana dowladnimadaa adkaatay adoo dacayana ma cadaalad lagu keenaya way dhammaatay tuugtuugtin
واي دماتي إن لقول الديل قريو باش عالمك dowladnimada Soomaaliya oo ay ku soo rafaaday ay soo dhistay intaan ay la soo martay intaan oo qarash ay ku soo bixisay loos garay mayso waxaan aad u taageersanahay in siyaasadda mid loo dhanyahay ay ahaato waan aaminsanahay taas laakiin kuma jiro Axmed Madoobe wuu diiday siyaasad loo dhanyahay waa diiday dowladnimo Soomaaliyeed كسو بالله الاتحاد نمكي للهاي إلا هدا أحمدو واحد دلو انجرسيف ونقضي قف كان دو انجرسيف ونقضي أو ديك عب عندو نقضي وحوي هم نمديو كتجايا ضد نمدي يبلو هاد نمديو كتجايا قف كمركو ضد عن نقضي مركز ضد عنو نقضي شعب كي سومالي لا محوها كمقن adeero waan leenahay waliba waa ku baryaynaa inta joogta aan kuugu soo gaarnaa taagna waa Bosnia magaaladii maxuu ahaa Sarbajiin magaaladii la lahaay Bosnia wixii ka dhacay oo kala kismay ka sameeyay aawi Rashiid Raawi dadkii qiimaha badnaa aawi nabadoonkii oo jireer weyn aawi ninkan isbitaalka yeela ma soo booqdaan oo ragga xisbiyada Axmedoobe u dooday ninkan uu soo dilay ma soo booqdaan oo laguhiisii xibnihiisii lixaadkiisa ku waay aawi haddaan tan habeen hore oo nabadoonaha lagala baxay gurigiisa miyaadna ogeen idinka waxaas wuxuu ku hay dadka miyoodna ogeen war ilaahay ka baq haddaad rabtiin siyaasad hufan oo wanaagsan iyo sumcad wanaagsan xisbiyaalkiina inay noqdaan ay lahaalaan hadii rabtiin walaalayaalo taageera dowladnimadu taasaan aan ku gaari karnaa danaheen oo dhan dowladnimadaan ku gaari karnaa danaheen waxa u dhiman waa hal sano iyo bar بري مشرح هاد نقون كرتا عد والبا مشرح نقون كرتا هدي لو قوليستو ويدي باي مانتا إني دولدني مدينة أتكاتو أو أدوليبا قعن محو هاي قعن كوسيسان دولد قبلية دي أو أن محو هاي دولد فدرال كأبينك أود بديهن مود war wallahi billahi Soomaaliland dad aad sheegaysiin oo gooni u taag sheegtay dawlad goboleed ay ka dhow yihiin jirta Soomaaliland oo la hadla dawlad goboleed ay ka dhow yihiin jirta qarannimo naciibka daraadeed waa dhamaatay in lagu naaxo dawlad diidnimo in lagu naaxo oo dibdib xoolo loogu helo waa xaraan ma an ogolin Soomaali baale dawladda Soomaaliya dalka dhan dawlad waa haddaad doontiin ku dhawaaqa waa go'nay wallahi idinkoo dacayinaan lidin keenaya seewaya malas baryaay maalin walba barin ma lagu jiray dawladnimadu adeer dadaad ku leedahay 4.5 lagu qaybsaday dadaad ku leedahay u yeer dadkaaga haddaad run sheegayso u yeer dadkaaga dawlad la wada leeyahay ayaa dhisanay kala bax dadkaaga kala bax si Suudaan oo kale لكن انت نوالي لبا فرس انكي راعاد الدولة دلعضو لبا فرس مراعي كرتت اما قرني ماذا راعي اما واحد قوصة نقوني ساو ولا لحد جودو او محاضر تالير هذا اياد نقوني اما حوك هالقوق مقوني مركز اما هالقول حالتمي نيفا لما يلي كرو من الله يلي كرو وليبا انا قوح سومال نمكا هو سيسنا مدى يغضو Soomaalinimadii aba la isku dulmaaba nin 61 xildhibaan ku leh afar beelood iyo bara wax lagu qaybsaday haddana maalin walba dawladii Soomaaliyeed inay dhaqaaqada diidan anagu ma garanayno daawadeeda ma garanayo daawadeeda waxa weeye dawlad xoog leh oo dalka oo dhan qabato oo ciidankeeda dhisan yahay taas waay waxay diidayeen ayaga taas waay وحاسن نصيب درا ضدك لهايو فيها ولا مقن دولة ولا مقن دولة ولا مقن دولة ودولة فدرال كاو بس انت كلا وقوالله وليبا فدرال كوضا انا لشيغن ما فدرال كمحو نقنايا محوها استيد مو نقنايا سديدي تمنكي قول مو نقنايا مشن قولو نقنايا
ما مد قبيل كل سنة ونقنايا ما مد 4.5 ميل والبلو قيبسة ونقنايا بل هالشيء يعني دين شيء ماشي اللي يرى هذا ماشي اللي يرى هذا قال مدك مركي اللي ساي حلوانا هذا قبيلة لو قيبسة هير شبه اللي مركان اللي ساي قبيلة لو قيبسة كونفرق البيت مركي اللي ساي قبيلة لو قيبسة ولو لو كلا بدنيه ماشي اللي يرى كسمايو sababtaas baarlamaanka u diiday ma taqaanin salagle wax la yiraahdaa la sameeyay oo deegaana wax lagu qaadanayo leer deegaanka xurta ah ee la dhihi karo ree hebel waa ku badiyeen hebel waa ku yar yihiin ee xurta ah waa kismaayo oo kaliya ya markaasaa ninkii markaas gabra gacanta ku haystay oo saakow ka soo galay oo jamaama ka soo galay oo afmadow kaligiis ka soo galay oo wuxuu ahaay badhaadha ka soo galay oo ka soo galay jannaale ka soo galay oo jamaama ka soo galay oo jilib ka soo galay adeerow kaligaa maa hooyada ay ku dhashay uu siroonide oo salagla samaystay uu kusoo dhistay oo xagar wax la yiraahdo uu samaystay uu kusoo dhistay adeer uu siroonide maxaad beer xaana ku diiday inaad kasoo dhisto maxaa ku diiday in raas gamboni kusoo dhisto qabiila le maaha oo ku badan ku ogaan marka taas ma soconayso axmed taas ma soconayso tu kula ma haysa saasaad dambiilo ku noqotay oo dad aad laysay laba qasaaraad qabtaa tiyoon kuu soconaynin adoo dambiile ah oo dad laayay xagso kursigan dadkaaga ha adkaado sidaad u lahayd aniga dowladnimada ha adkaataan dhawaaya adigana dadkaada ha adkaadaad dhadooysa marka aniga adiga waxaa noo dhexeeya gaab weyn ayaa noo dhexeeya adeer sharciga uu isu soo dhiib shacabka soomaaliyeed qoraxda ha u soo saari mudaharaad ha ku abaabulin beenbeen ha dadkii guryahooda ha ugu burburinin fadlan sharciga uu soo dhiib war horta sharcigan dacwadan igu socotoo la sheegaya maxay tahay dheh soo wajah haddaadna yeelin waa lagu soo qaban adig iyo wixii ku raacaba inta aan ogahay waa taa adiga joyceley adiga go-aan qaado aad iyo aad aad u mahadsantihiin cidna inaan ku xumeeyo ma rabo wixii jiroo dhabahaan sheegay waxyaabaha aan aaminsanahay oo aan taageersanahay waa in dowladnimadeenna ay adkaato intaas ayaana dan noo wada ah aad iyo aad aad u mahadsantihiin warqadaha aan soo geliyey ayaan sharaxaad ka bixinayay waana hayaa cid allaale ciddii u baahan waa 3 qaybood qayb guddigii arrimaha gudaha ee markaas jiray ee baarlamaankii 9aad oo qoray dacwo ah qayb mooshinkii oo ay 43 xilli ay saxiixday markii dabar 130 lagu muxuu ahaay lagu ansixiyay 132 lagu ansixiyay iyo qaybtii 3aad oo ah gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka muxuu ahaay gudoomiye jawaari baarlamaankii 9aad oo u diray madaxweynaha Soomaaliya u diray intaas waaye inta muxuu ahaay meesha taal aad iyo aad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu دين هرت قبيل إنك هذا دمستر أقول ما لينا الشيء كنت من كجرتا قبيل إنك هذا دمستر وحال لينا قف حول الله دري شغل لو سوق أبوي لو خصبة إنه قبض الشغلي هذا قبيل إنك هذا دمستر هل هو شغل أسكت صار دمستر تام شغل خصبة معه والشغل هذا أدورنا نفسه والشغل لو دورنا والشغل قرن marka munaasabad lama laha xiriir lama laha mahmaayadaan meesha ay soo gashay hadiiba aa qabiyeysay madaxweyne hadiiba aa qabiyeysay shaqada lagu doortay oo ilaa hadda aadan noo sheegin
sababta ay u dhacdo arrintaas waxaan u malaynaa xaq u malin mar kale inaa isu soo taagto waxay kugu taa fadeexo waxay kugu taa wajugo inaad mar kale tiri hallay taageero sidaasoo kale waxaan dhihi lahay inaad dhaqaalaha qaranka u isticmaashid hantida qaranka inaa u isticmaashid kursiga inaa u isticmaashid inaa uga faa'iidaysatid mar kale si aa ugu soo laabatid si mar kale dhuunta uga qabatid ummadda arrintaasina sax maaha fursadaa lagu siiye laguma aqoonin shalay annagoo dhan waxaan islahayn anoo layga raaya waxaan islahay ninkan wax fiican oo samayn doonaa xaqiiqaa idiin sheegaan laakiin waxaa dhacay wax la filaaya ma aha mana la aqbali kara markana in la soo laabta sababta aan leeyahana waxaa wax kale ma aha waa ogtihiin dalkaa wax aan ka soo wada marnay meesha laga soo bilaabay meesha la gaarsiiyey annagoo habbi ahaan wareejinay ka tagnay wax kalena ma ahayn hore ha u socday hore miyaa loo socday hore looma soconin soo macquul miyaa maanta in nagula qanciyo isla nidaamkii aan soo celinaynaa maxaa soo kordhay qofku xataa hadduu wax ka bartay khaladaadkiisi waa fiicanta hal khalad oo ay galeen ay bedeleen hala sheego mithaal waxaa ah doorashooyinka ka dhaca gobollada sida loo boobay oo keenta crisis hadda ka bilowday gobollada mithaal waxaa ah galmudug dalkan waxa uu burburo waa cadaalad darro madaxda qaranka waxaa la rabaa dalka inay ku hogaamiso cadaalad madaxda qaranka waxaa laga rabaa dadka inay midayso sida dadka loo qeybiyey sida dadka mataqaanaa la isugu diray